shaqo abuur aad qabataa marka shaqo abuurkaasi ma mid si toos ah aad shaqo u geysaan neertida mise inay si shaqo ku heli lahayn waxaas oo dhan maanta waa geen ka dhax shaqada laakiin ayaama kadib waxa dhici karta inuu qaban waayo ama wadan waayo ama uu ka tago mid kale waayo haddana waa sida marka la yiraahdo yani qofka kalluunka sida loo cuno hadana hasiin kalluun cunay sida loo dabto baro Puntland waa wakiil u tahay maxaad ka qabataa inta face mask fara badan oo sanadkii ilaa 4 jeer baan cusbitaalada iyo MCH-da gaarsiina hal abuurka gabdhaha iyo aqoontooda kor inuu qaado waxay bixisaa scholarships kala duwan ay bixisaa marka laga hadlayo xamar iyo koonfurta Soomaaliya halka soo gaara Puntland ay ka shaqeysaa dawladda dooraankeeda leedahay waxyaabaha noocaas laakiin dabcan waa ogtahay dawladdeenu iyaga kabid iyo maarta ku socdo maahay dhinaca dhaqaale iyo wax kale nagama kabi karaan fursad fiican ay ka jira xitaa farsamada gacanta hadduu ahaan la korintistaha hadday ahaan lahayd tuubistaha hadday ahaan la carpenterka faaradaha nooyinka la sameeyo oo sida biskudada iyo xalwadaha iyo qofku uu iibin karo shubka la shubo barandada marka la shubaayo iyo guryaha formulaarka iyo darashadaha marka la shubaayo ninka shubaya lacagtu qaadanaya yaabay guri kasta 10 qof ka soo qato 7 qof hadii joogto hal qof baa shaqeeya caa'iladii qaaraanka iyo qaraabada iyo dadka shaqada ay dheeryihiin fursadaha ay sheegtay hadda farsamada gacanta laga shaqeynaya dhalinyaro badan oo jaamacadaha galay oo 4 sano dhiganayay hadii maanta loo soo bandhigo ma qaadanayaan baa inuu noqdo tuubayste ama buskud iibiyo ama sida sheegtay meel qoditaan sameeyay gabdhiyo dhamna caafimaad bay bartay guriyahay fadhiyaan marka waxay noqotay kulli digriga inay haystaan oo aysan shaqo hayn waa qalad xirfadaha ay bartaan bay gabadhu waxa ka fiican hadii ay barato cilaan saarka iyo gabdhaha timaha si loo hayay meel furata kun jeer ka fiican khibradiisu kordhay shaqadii iyo iyo maxaan ku raahday salary-giisu wuxuu ku korayaa position shaqadu ka joogo title-kiisa wadan aan fiiri istakiinkii iyo irbad yar iyo malgacadii samaysan karin 3 jeer baan cunaa hadda u fiirsato hadda dhalinyarada iyo dadka isbisha jiilasha yar oo dhawacaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعند وضع كنا سودوادا برامجك لكلنك هالدورك بالشدة وتدوات كده بمرة كده وطن تي في سهل كيبل تي في تدوات كان وحى برامجك مرتي وقع عبد العزيز فارح حاج السعيد واه برسل وكترسن جامعة برج أفريقيا إسلام كان وكيلك هانو أكاديمي ديكانا دا بنتلان إنجنير عبد العزيز كسودو برامجك لكلنك هالدورك بالشدة يولي با تي في سهل كيبل تي في سودو أصلاً بشير وأنا كفر أحسن أمانة برنامج كنا كسوق قبلهم. وعن دياد صار دونا هنا أكاديمي مركا بالمركا هرت هذا ضدك وش راح نحكي شقة هنا أكاديمي. هنا أكاديمي وأكاديمية الصومالية و بيس كده أما حرمت وياهي مجال مقدشو بل سي حرمه كله وكشقيسة دولة جولة الصومالية وحرم لو أساسي وكشقيسة kor u qaadista aqoonta iyo wacyiga shacabka Soomaaliyeed waxa ay qabataa tababaro hadii ahaan lahayd dadka maxaan ku leeyahay xirfadaha shaqada ee lagu shaqeeyo u baahan sidoo kale waxay tababaro u qabataa oo la shaqeysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaarkood tababarkaas oo ah capacity building ama kor u qaadid aqoonta shaqaalaha waxay tababar u qabataa qaxootiyada iyo dadkan IDPs-ka ah oo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa sidoo kale tan waa akademiyad qofkii isagu doonayo inuu si gaar ah wax bartana uu ka heli karo waxbarasho uu isagu iibsado oo qaarkood ay online ku baxaan ajaanib iyo Soomaaliba ay dhigaanin sidoo kale hana academy waxa hoos taga iyadana wax la yiraahdo Somali STEM Society urur Soomaaliyeed isaguna waxa uu ka shaqeeyaa in kor loo qaado waxa la yiraahdo STEM wadan walba oo ka jira waa Science Technology Engineering and Mathematics waxa dunidu ay ku horumarday oo dalalku ay ku kala tageen waa maanta horumarkan adduunka nolosha casriga ay ku saleysan tahay waa STEM-ka science maadooyinka science-ka oo la dabaqo application iyaga oo maaragtay loo bedelayo maxaan ku raahdaa wax shaqeynaya marka ururkaas Somali STEM Society waxa uu taagan yahay isagana maaragtay aan u asaasnay sidii Soomaaliya
sayniska kor loogu qaado haddii iskuulka ahaan lahayd iyo jaamacadaha si loo helo dad badan oo soomaaliyeed oo saynististayaal ah oo wax soo saara mustaqbalka. marka waa cusub yahay wadamada adduunka, wadan walba wuu ka soo jiray, laakiin maadaama burbur hadda muddo ku soo jiray ilaa 4 sano ka hor baa la asaasay. shirkiisa ugu horeeyey wuxuu ahaa 2018 baan u malaynayaa. kii u dambeeyey sanad walba annual meeting baan leenahay ama forum. hadda wuxuu dhacay August sida social media iyo safiirka Mareykanka iyo safiirka Chinese-ka iyo shirki wuxuu ahaa safiirka Chinese-ka uu keeni jiray rocket-ka Hana Academy. waxyaabaha ay qabato bay ka mid tahay Somali STEM Society-na iyada maxaan ku rahdaa maamusha. shaqo abuur aad qabataa, marka shaqo abuurkaasi ma si toos ah aad shaqo u geysaan neertiba mase inay si shaqo ku heli lahayn waxaas oo dhan aad u samaysaa? horta basically shaqo abuurkan laba u kala saarayna. qofku inuu xirfadii yaqaano uu ku shaqaysan karo oo la baro oo uu leeyahay, iyo in shaqadii aad kaxayso geyso. marka inaad shaqada qofkii la raadiso ama kaxayso geyso macno ma samaynayso, sababtoo ah maanta waa geyn ka dhaa shaqada, laakiin ayaama kadib waxaa dhici karta inuu qaban waayo ama wadan waayo ama uu ka tago mid kale waayo haddana. laakiin ahmiyadda xooga meesha u baahan in la saaro annaguna aan saaro waxay tahay in dadka aqoonta loo dhiso iyo xirfadda. qofka markii aqoonta iyo xirfadda loo dhiso kadib isagaa shaqaysan karaayo, wax qabsan karaayo. waa sida marka la yiraahdo yacni qofka kalluunka sida loo cuno habaran hasiin kalluun cunee sida loo dabto baro. marka waxa ugu badan aan hadda xooga saaro waxay tahay xirfad baridda iyo kor u qaadida aqoontooda. wayna jirtaa website iyo barnaamijyo ka shaqeeya shaqo abuurka oo shaqooyinka la soo geliyo oo dadku ka xareeyaan CV-ga oo kaleeto dadku intay soo geliyaan ama lala habeeyo kadibna siday u xareysan lahaayeen iyo la baro. waxa la yiraahdo CV tailoring ama CV surgery. shirar waxa jira ballaaran aan qabanay. boosaas uu ka dhacay 10 magaalo Soomaaliya baanu ka qabanay. kan ugu weyn oo hadda soo xirmaaya oo career fair-ka December wuxuu ka dhacay hadda Muqdisho. waa kan annualka Soomaaliya dhan sanadlaha halkaas ku soo xirmaa. magaalooyinkana sanadkii dhan bilba magaalaan u qoondeynaa. waxaan u malaynayaa san qiyaasay February ahayd boosaas markaan ku qabanay. career fair-kaasna ahmiyadiisu waxay ahayd in dhalinyarada shaqadoonka iyo shirkadaha la isugu keeno si ay isu helaaneen. Puntland waa wakiil uga tahay, maxaad ka qabateen inta joogtay? basically hay-addu Soomaaliya hadda ilaa muddo 10 sano ah bay ka shaqeynaysaa. runtii intii la asaasay 10 sano waxaa moodaa inay horumar ballaaran samaysay marka laga reebo Puntland. sababtoo ah haddaa fiiriso hadda website-ka ama social media profiladeeda ama akawnadeeda haddaad eegto hay-adda shaqo badan bay waxay ka haysaa Muqdisho, waxay ka haysaa Jubbaland, waxay ka haysaa Koonfur Galbeed, waxay ka haysaa Galmudug, waxay ka haysaa Hirshabeelle. balse Puntland hadda ilaa muddo 2 sano ah waxay ku tahay present. markii ugu horeysay aan horta aniga iyo Hano isku biiray waxay ahayd 2018. shirar aan kala qayb galay iyo 19 iyo Somali STEM forumkii. kadib waxay yimi coronavirus shirarkii waa joogsadeen. adigu kadib markaan isbarnay muddo aan la shaqeynayay waxaa timi fikraddii ahayd haddana in bal hay-addii loo soo fidiyo waxqabadkeedii Puntland. marka hadda waxyaabo fara badan oo weyn oo intii 2 sano hadda Puntland aanu ka qabanay ma jiro, laakiin waxyaabaha qabanay waan kuu sheegi karaa. waxaa ka mid ah kow Somali STEM shir ku saabsan jaamacadda bariga Afrika waan ku qabanay. sidoo kale waxaan qabanay career fair-kii oo bishii 2 sanadkan la soo dhaafay. face mask fara badan oo sanadkii ilaa 4-5 jeer baan cusbitaalada iyo MCH-da gaarsiinaa oo aan u qaybinaa. sidoo kale waxaan sameynaa wacyigelinta TV-gan ka baxda oo aad aragtay hadda sidii xirfadda farsamada gacanta dhalinyaradu ay u baran lahaayeen ugu shaqaysan lahaayeen oo barnaamijkaas wacyigelintiisu ay socoto oo aan jecel lahayna in insha Allah marka dambana aan ku daro meeshii lagu bari lahaa iyadana inaanu asaasno oo macallimiintii aan isku xirro dhalinyaradii markaa wax baran lahayd. waxaa jirta mashaariic kale oo runtii hadda aan sugayno ama noo xiraysan oo in la maaragtay Puntland ay ka hirgalaan. waxaa jira barnaamij Somali Sisters Initiative la yiraahdo oo Somali STEM hoostaga oo wuxuu ku saabsan yahay hal abuurka gabdhaha iyo aqoontooda kor in loo qaado. waxaa jira in gabdhaha hal abuurka leh
la siiyo maalgelin loo helo saasoo kaleetana tababaro loo qabto oo wax la baro iyo isaguna waa barnaamij hadda bilow ah oo mar dhow inuu Soomaaliya inteeda kale iyo Puntlandba ka hirgalo aanu jecel lahay insha Allah rajeynayno kuwa kale oo iyagana aan rajeynayno inay hay'ad waa cusub tahay 2 sano kaliya hadeer baa wali dhaqdhaqaaqeedu uu bilow yahay mashaariicda iyo hawluhu sida Soomaaliya inteeda kale uga socdaan wali uga socdaan laakiin maadaama halkan aan keenay hadda Puntland soo gaarsiinay insha Allah waxaan rajeynaynaa mustaqbalka soo socda in wax badan ay nooga qabsoomaan Puntland waxay bixisaa scholarships kala duwan ay bixisaa marka laga hadlayo Xamar iyo Koonfurta Soomaaliya halkii ma soo gaaray basically scholarship yada hadda ay bixiso waxa jira scholarship la yiraahdo Hodan Naaleeye scholarship oo waxa lagu bartaa xirfadan digital creative media sida multimedia iyo graphic design video recording editing iyo waxyaabaha noocaas oo saxafiyiinta iyo aad ugu shaqeeyaan runtii barnaamijkaasna waxa lagu xusaayay gabadhii Allah naxariistay ku dhimay jidda qaraxi Kismaayo ka dhici jiray Hodan Naaleeye hadda batchkii ama dufcadii ugu horeysay baa dhawaan dhameynaysa markay dhameyso dufcad kale insha Allah la rajeynaya hadana in la qaato waa soo xayeysiinay online-ka oo dad badan oo ka faa'iideysto xareeyay way jiraan macallimiin ajaanibi iyo Soomaali waa u dhiga waxaa jira barnaamij koonfurta ka socda maamulada kale iyo Xamar iyo oo la yiraahdo bar ama baro oo USAID ay maalgelinayso oo loogu talagalay dadka iskuulka waayay ama dhaafay haddii ahaan lahaayeen caruurta aan waalidkood ka bixin karin iyo haddii ahaan lahayd dadka weynaaday oo markay yaraayeen aan tacliinta helin runtii dad aad fara badan oo kumanaan kun oo qof dowlad goboleedyada kale ay ka dhigtaan runtii Puntland hadda wali anagu gacanta kuma hayno barnaamijkaas wuxuu ka mid yahay barnaamijyada scholarship-yada ay bixiso waxaa jira mid haano iyadu ay si gaara oo maaragtay dadka aan iska bixin karin markay macquul tahay iyadana ay siiso kuwa kale insha Allah dheeraada wixii fursado soo baxa rajeynayna in maaragtay la helo goorma rajeynaysa marka inay soo gaaraan fursadahaas basically horta sida hadda scholarship-kan Hodan Naaleeye oo kale waa wax qof meel kasta ha joogo online buu ku baxaa oo uma baahna hal meel in la joogo dadka Puntland way xireen karaan wayba dhigtaan hadda qaarkood barnaamijkan bar ama baro runtii ku fiicnaan lahayd Puntland inuu yimaado oo ka hirgalo wali Puntland qorshaha kulli ma aqaan ma dhinaca dawladaha iyo inuu wali asaaskiisi baan xirreyn baan u maleynaa si fiican laakiin waan rajeynaynaa iyadana isagoo laakiin si kala ah hay'adda care iyo baan u maleynaa inay wado baa jirto USAID loo wado maxaan ku dhahday laakiin waan xiraynaa fursadaha dhibaatooyinka dadka haysta in fursad loo helo hay'adaha internationalka waan u xiraynaa wixii la helana markaas waan la wadaagnaa dadka ana kadimi Puntland ay ka shaqeysaa dawladda door aankee ku leedahay hada kala shaqeysaa ay la qabato dawladdu wixii fududeyn u baahan haddii ahaan lahayd dhanka maxaan ku idhaahday markaan wax qabanayno inaan xasuuno nala fududeyso waxaan uga baahano waxyaabaha noocaas laakiin dabcan waa ogtahay dawladdeenu iyagaaba kabid iyo maarta ku socdo maaha dhinaca dhaqaale iyo wax kale nagama kabi karaan taas waa basically iyadaaba kabid u baahan marka laakiin wixii dawladnimo oo technical iyo waa naga caawintaa dhalinyarta waxa u sameeyay inta badan shaqo abuur wadanka marka la fiiriyo dhalinyartu aad baa looga cabanaya in dhalinyar badan oo qaarkood wax bartay inay darbiyada fadhiyaan kuwa kale way taariibeen oo wadanka iskaga tagaan maxaa qorshe marka idinka ah taariibka dhalinyarta iyo waxyaabahaas basically gaar ahaan tahriibka barnaamijkan tahriibka marka la yiraahdo horta waa aafo muddo dhibaato ku haysa dalkeena dalal badan oo adduunkana ku haysa tahriibkana basically waxa keena laba waxyaabood mar waxa keeni kara dagaal oo qofku inuu amni la'aan daraadeed uga tago meesha deganaa marna waxa keena resource la'aan resource-gu marka ama shaqaha ahaado wuxuu cun lahaa ahaado ama abaar ha ku dhacdo oo maaragtay xoolihi ka dhamaadeen waa factories-ka keena way inaga marka labadii waxyaaboodba waa ay jireen wadankeena oo dhinaca hadday ahaan lahayd colaada oo amni darrada iyo dhinaca shaqo la'aanta iyo resource-ga yani dadku resource-ga u baahnaa haysan tan waxaa la dhihi karaa gaar ahaan Puntland amnigu alxamdulillah waa fiican yahay oo factor ma aha amni darro dadku ka carari maayaan laakiin waxay ka cararayaan waa shaqo la'aanta way markay shaqo la'aan noqotana qofka bini aadanka sideedaba fursadu waa labo
laba jeer bay qofka fursadu hor timaada mar waa iyadoo oo kusoo madhay oo jaanis waa ina ka faa'iidaysto adu waa qabsato taqaan sida loo qabsado marka labaadna waxa weeye ina adu abuurato u baahanta qofka bini aadamkana sidiisaba fursad waa la abuuraa haddii uusan abuurin fursad iskama timaado intuu meel fariisto wax sugo annaga marka tan aan xoogga saarayno meeshaan ka shaqeyna waxay tahay abuurista in dadku fursadooda abuurtaan fursadihii baa jira laakiin ina qofku uu abuurto tusaale ahaan waa maxay qofku inuu leeyahay creativity ama entrepreneurship iyo hal abuur horta farsamada gacanta habay noo dameysay oo uu dareemi karo ama la tuso fursadaha ganacsi ee waddanka jira waxaa jirta iyadoo waddanka waa ognahay dhaqaale uusan lahayn oo dhibaato badan ay ka jirtaan dhinaca dhaqaalaha ah iyo awood darri dowladeed oo wax badan aan dadka kabi karin laakiin waxaa jira haddana dad dhaqaale samaynayo ladan saasay ku tahay sideedaba nolosha waxay tahay meel baaba'sano xataa waxaad arkaysaa dagaal ka socdo laakiin dadna ka tijaarayaan dadna ay ku baaba'ayaan marka aduu seeba u noqon kadhaa dadka meesha wax ka qabsado wax kale maahana waa inaa waxa jira aad fahmi kartaa oo aad ka faa'iidaysan kadhaa sidaa daraaddeed laba waxyaabood baan xoogga saaraynaa maan saaraa in dhallinyaradu kow fursadda farsamada gacanta waxaa ka jirta fursad weyn oo shaqo waxyaabahan inta badan la barto oo qofku uu tusaale ahaan jaamacad intuu galo 4 sano iyo 5 sano hadhowtiina aan shaqo wadankii u lahayn mushkilad weeye cilmiyadan faraha badan oo fakultiyada iyo jaamacadu dhigaana intooda badan shaqada laguma helo waxa shaqada laga helaa waa wax yar taas waa qodobka labaad waxay tahay dadka wax bartay iyo shaqada suuqa taal haddii kala bataan iyadana waa dhibaato innaga waxaan ognahay generationskeena dadka aada u koraya dhalinyarada ku badan taabeenahay alxamdulilah maanta soomaaliya waqtigii dowladda ahayd waxaan u malaynaa 1 ama 2 jaamacadood baa jiray keliya haddana laakiin dowlad goboleedka baa intaas jaamacadood leh bulshadiina waa badatay dadkii wax baranayay waa bateen fursadihii shaqo soo baxayna waa yarta hadda eeg magaaladan boosaaso haddaa fiiriso sanadka dhan tiri imisa shaqo ka soo baxa oo la soo dhijin karaa haddii dhirka u badan 100 u malayn waa dadka wax baranaya jaamacadaha ka qalin jabinayana fiiri marka shaqadii meesha taala baa yar dadka wax bartan waa badan yihiin qodobka labaad waxa ay tahay qofku waxa wax ku bartay badankiisa oo shaqo lagu helin qof baa arkaysa arday jaamacad wuxuu gelinayaa 4 sano ama 5 sano wuxuu baranayana shaqo wadankan kama walaha lagama shaqeeyo marka wadamada horumaray oo wax walba oo shaqo abuur ka jiro shaqooyinka yaalin ayaa qofka dhirta barta shaqo waa helaa ya laakiin halkan wax intiisa badan haddaan shaqo ku lahayn marka waxa jira oo yaalla oo meeshii fursad fiican ay ka jiraan xitaa farsamada gacanta hadduu ahaan lahaa korintistaha hadday ahaan lahayd tuubistaha hadday ahaan lahayd carpenterka faaradaha hadday ahaan lahayd maxaan ku idhaahdaye xataa cunooyinka la sameeyo oo sida buskudada iyo xalwadaha iyo qofku uu iibin kareed tan kale waxaa jirta hadda guryaha marka la dhisayo haddaa fiiriso imisa fursad ka jirta you can imagine godka qofka qoda god maraan guri hadda dhisayo god ilaa 4 muq qaadanaya dhowr maalmood bay qodayaan 2 nin way shubka la shubo barandada marka la shubayo iyo guryaha formulaarka iyo dariishadaha marka la shubayo ninka shubaya lacagtu qaadanaya waa yaabaysa saqafka qofka saara korontiistaha ranjiilaha tuubistaha waxa soo dhan mana oga oo dadkii uma jeedaan qofkii wuxuu kula joogaya asbuuc qadaraas wuxuu qaatay $500 waa dhamaatay 2 qof baa la shaqeynaya oo joornaata siinaya xirfadaas uu yaqaana marka wixii lahaa fursad ma arkaan qofkii wax uu bartay markuu jaamacadii waayo ka soo baxo shaqo waayo suuq u fariisan dhibaato ku dhacsay dhibaatada maxaa xiga stress baa xiga stresski maxaa xiga hadduu stresso violent baa imanayo inuu wax dilo inuu dhibaato sameeyo inuu dagaalamo sababtoo qofaan waxaysa qof bini'aadamka nolol buu u baahan noloshiisa si u socoto wuxuu u baahan yahay wuxuu ku rangarayo oo shaqo iyo dhaqaale shaqada dhaqaale ka soo baxay sidaasoo kale haddii dadka shaqeynaya ay bataan waxa badanaya iyaduna purchasing power awood wax iibsiga suuqa hadda dukaanada hadda badankeed ma carwooyinka qof iyo 2 iiba ugu tagaysa ama lama joogo why sababtoo dad wax iibsado oo dhaqaale haysta ma joogaan wadan guri kasta 10 qof ka suuqa 7 qof hadii joogto hal qof baa shaqeeya halka qof baa lagu wada nool yahay lagu dul xiran yahay caa'iladii qaaraanka iyo qaraabadii iyo dadka shaqaadaya ay dheer yihiin marka haddii ka waran guriga ay 7 qof joogto ay 3 shaqeynayaan ama 4 dadku waxay soo qaataan mushaarka markayna suuqa la aadan ku celiyaan dhaqaalo waa kici lahaa korbu kici lahaa wax iibsiga badan lahaa wax badan baa jiri lahaa marka qofku waxa saambarta shahaadadaas sitaa wax ku raadinaya maaha khasab inuu wax ku helo waa inuu waxii jira oo fursadaha ka faa'iideysto oo abuurto fursadda wadanka way taalaa
meeshii jidho qofku inuu arko ka faa'iidaysto wey nolol buu ka samayn karaa dhaqaale fiican oo ka samayn karaa haddii uu og yahay marka annaga waxaan ka shaqeynayn raadinayna waxay tahay in la tuso taas waa ahmiyaddu taas fursadaha ay sheegtay hadda farsamada gacanta oo laga shaqeynaya dhalinyaro badan oo jaamacadaha galay oo 4 sano dhiganayay haddii maanta loo soo bandhigo ma qaadanayaan ba isla inuu noqdo tuubayste ama buskud iibiyo ama sidaa sheegtay meel qoditaan sameeyo saas oo kale hadda fiiri problemka jira wuxuu yahay waan ka hadlataa marar badan waxa jirta waxa la yiraahdo stereotype waxa way qofku inuu fikrad khaldan ka aaminsan yahay waxaas oo ma uu arko shaqo hoose maaha saas taas waa khalad weeye shaqadu nooca doonta aad sharaf bay leedahay shaqooyinkaas waliba shaqooyinka xalaasha ah oo qofku yani dhaqaalaha uu ka helayo wax ugu xalaalsan oo uu ka samaynayo way marka arintan qaab badownimo ay ku jiraan xadaarad lahayn oo mujtamaceena ku soo jiray oo shaqooyinka ay u arkayeen qofku khalad maaha xarago way qofka duu korotista yahay halka biinsuunkiisa gashto ama tuubista yahay ceeba ma leh oo maartay qaban karo godka maxaa lagu qodaa waxa jirta mishin koronto loo saasad ugu qodayso waa shaqo marka taa waa inay bedelaan dhalinyaradu oo ka tagaan waa khalad sababtoo ah inaad gaajo u dhimato ama aada waxba haysan ama shaxaatanto waxaa ka fiican inaad shaqo abuurayso markaa shaqadii dhaqaale ka soo hesho gurigaaga iyo dadkaaga iyo haddaa xaas leedahay ama ciyaal leedahay ama waalid leedahay mas-uuliyaadka kugu xiran si fiican aad u gudan karto oo sharaf leh mustaqbalna aad abuuran karto baa ka muhiimsan laakiin way jirtaa waa kugu raacsan arrintaa weliba xoog bay u jirtaa innaga deegaanada gaar ahaan puntland hadday noqoto inay kafaan arrintaa laga faanayo waana khalad fikraddaas waa fikrad u baahan inay bedelanto oo si khaldan ay dhalinyaradu ka dhaadhicin waxaan ka hadlaynooba u sheegayno oo waxaan wax hore u jiray maaha dadkaan cid kala hadasha ma jiro cid ka wacyigelisa ma jiro cid u sheegta ma jiro soomaalida garan marka haddii dadka loogu celceliyo oo wacyigelinta la badiyo marka dambe waxaa imanaysa inay fahmaan mar walbana markaa dadka wax u sheegayso wacyigelinayso laguma talagalo taargetkaaga inay kulli aqbalaan ama qaataan percentage qof iyo 2 3 4 5 markasta ugu celi haddana mar walba cid bay gelaysaa fikraddaasi آخرka marka tartiib waxa arkaysaa yani rooba maalin laguma dhisin hal maalin ama sanad laba wax laguma qaban karo laakiin hadii wixii la wado marka dambe mujtamac waxa arkaysaa jihaysan oo si fiican wixii uu fahmay oo guuraya insha Allah ugu dambeyntii maxaa soo jeedinaysaa anaa ka dib waxaan soo jeedin lahaa in hal wax haddaynu nahay Puntland gaar ahaan aad xoog loo saaro in la saaro skillka waxa la yiraahdo farsamada ama xirfadda hadda cilmi kastoo aad barato marka aad xirayso CV-gaaga shaqadu waxay fiirinaysaa waxyaalaha skills ama iyo competencies qofku waxa uu awood ku leeyahay مثلا hadda anigu waxaan bartay engineering telecommunication haddana 4 sano cilmiga aan baranayay oo dhan ama lagu barto waa cilmi guud oo ku saabsan takhasuskaas iyo engineering laakiin marka shirkad aan shaqo aan u tago CV-gayga waxay ka fiirinaysaa aniga inay weydiinaysaa skill gaar ah xirfadeed oo teknolojiyada ku saabsan maxaa leedahay ma programming-kan ku fiicnahay ma networking-kan ku fiicnahay ma cyber security-kan ku fiicnahay maxaan ku iraahdaa wixii waa badan yihiin moogta marka qofku waxa ugu fiican oo ku shaqeeyo oo adduunka hadda la isugu tagay waa skill waxaad aragtaa saas oo kaleeto wadamada hadda horumaray badankood waxay leeyihiin skilled immigrant visa wax la yiraahdo xirfad loogu talagalay dadka xirfadda leh fiisooyin wadamada baa kala boobaya dadka xirfadda loo kala qaadanay sababtoo waa maxay dal iyo dad iyo mujtamac ma jiri karo noloshooduna ma socon karto haddii dad xirfad la helin marka inaga waxaan ka tagnay xirfaddii weliba cilmiga aan barano cilmiga wuxuu isugu jiraa midna technical yahay midna art science iyo artiga aad u badan oo la baranayo la aadaya haddaa fiiriso tusaale ahaan gabdhaha oo kale waxay wada aadaaneen public health iyo nursing iyo caafimaad gabdhiina halkaas ku yahay majority-guna ma shaqeeyaan marka soo baxay sababtoo ah xagee ka shaqeynaya aadaya qof cisbitaaladii yaala waa tirsan yihiin 3 2 4 cisbitaal baa yaal intay hayar gareyn karaan oo shaqaaleysiin karaan waa kooban tahay hay-adaha iyo waxaan caafimaadka looga shaqeeyay projectiyada intay shaqaaleysiin karaan iyo dowladdu waa kooban tahay gabdhihii oo dhanna caafimaad bay barteen guryahay fadhiyaan marka waxay noqotay kulli digriga inay haystaan oo aysan shaqo hayn waa khalad xirfadaha inay bartaan bay gabadha waxaa ka fiican haddii ay barato cilaan saarka iyo gabdhaha timaha si loo hayay meel furata kun jeer ka fiican inay aado digriyadan caafimaadka ah oo kulli loo wada barto sababtoo laba caqabadood baa ka jira marna dadka gabdhihii dhan baa bartay oo majority-gooda baa bartay marna marketka suuqa jobka yaallaa waa yari okay marka
taas waa tusaale ahaan baan ka hadlayay. sidaasoo kale dhalinyarada wiilasha iyaguna qofka hadda wadankan la yidhaahdo Germany waa wadanka kaliya oo degree iyo master iyo PhD waxa lamaba aado. degree badankiis dadku ma leh, wadan warshado leh way oo farsamada ku fiican. maxay sameeyaan polytechnic qofku farsamo gacan diploma uu sitaa 6 bilood hal sano hadduu bato warshad buu galaa ordaya waa shaqaysta khibradiisu kordhay buu shaqadii iyo maxaan ku idhaahdaa salarigiisu wuxuu ku korayaa positionka shaqada uu ka joogo titlekiisa marka dambaysa marka arkaysa 10 sano qof just diploma sanada ama 6 bilood laakiin lacag fiican qaadanayo warshad meel ka joogo waxay xoog saareen sababtoo ah waxa loo baahan yahay wax abuur. arrin kale waxa jira iyaduna muhiim ah waxay tahay tan shaqo abuurka ka gaara ganacsatadeena warshadaha yaryar ma sameeyaan. dhibaato weyn wadankan ka jira wadan aan fiiri istakiinkii iyo irbad yar iyo malgacadii samaysan karin iyo maxaan ku idhahdaa caagada yar oo biyaha lagu shubayo aan la soo baxayn waa waxa ugu simbilsan shalada caaga muraayadii aan samaysan karin ma jiri karo. bagaash waxa la yiraahdo bagaash bay naqaana xalmada Yemen iyo badankiisa meelaha ka keensanaa waxaas waxay in la soo baxaan waxay joogaan male warshado raqiis ah oo India iyo China ay ka soo iibsan karaan. waxa dhan wadanka looga baahan yahay way shaqo abuur baan ka abuurinaa marka hadii warshadaha yaryar inoo bataan hadda waxay dhaheen dadku wax moodaa hal fikrad iyo hal abuurkii waa ka maqano nin baa wuxuu sameeyay biyo kulli biyo galeen oo biyooda sameeyay ma biyo u aadaysa intaasoo faktor istakiin ma sameeyay hadda waxa ugu yar yahay way la rabo samacada yar oo telefoonka wax lagu dhageysto iibela suuq wala sababtoo maanta dhalinyaradii wiilashii gabdhii ciyaalka dhan telefoonada la leeyahay waxay joogto ma la sameynteeda macnaha ku fadhido qofku warshad yar soo qaato uu sameeyo marka ganacsadana waxa uu soo jeedin lahaa in warshadaha yaryar dal sidiisaba noloshiisa intaanay horumar weyn gaarin waxa lagu qiimeeyaa warshado yaryar ma leeyahay oo waxyaabaha yaryar oo dhan isagu ma samaystaa. hadda Malaysia markaan joogo waxaan arki jiray waxay leeyihiin nutritionka xataa cunada ina ka qaldan 3 jeer baa cunaa hadda u fiirsato hadda dhalinyarada iyo dadka especially jiilasha yaryar oo dhan wacaato haska jiran duruufaha dhaqaale darrada iyo faqriga iyo laakiin haddana 3 waqti bay cunaa 3 waqti kaliya qofku markuu ma filo subax buu cunaa duhurkii buu cunay inaan cunno fahelin xataa waa dhici karta laakiin dawladdu maxay sameeyeen rootigaas dhexdiisa mar wuxuu leeyahay faniila mar wuxuu tufaax u leeyahay liin buu leeyahay kan leeyahay bacbu ku jira asbuuc 2 asbuuc oo taariikhdiisu waa dheed gareysan yahay qofku waa qaadanaya shahab ku cabay wuxuu joogo mal waa raqiis way caruurtii iskuul waxa say cunaan kulli wax xoogeen marka nutrition ahaan waana wax loo baahan yahay. hadda fiirso Boosaaso iyo Puntland iyo Soomaaliland hadda makhaayadaha tagto galabtii aad rabto waxa cunto ka heli mayso jiraan cunadii weyneed kaliya la hayaa maroo qofku galabtii markuu soo kaco wuxuu baahan yahay bajiye iyo sambuus iyo kackac iyo waxa bur iyo inuu cuno helo barqadiisaas oo kale mar in meelahaas wax kasta available ay duka adduunka makhaayadaha marka timaado miis dhan bay saareen waxyaabo iska yar waxaas la cunaa qofku inta badan cunaayo waa waxaan u baahanaa cid sameeyana ma jiro marka in la barto ganacsiyada laftirkooda door ka qaadato warshadaha yaryar oo dalku wuxuu u baahan yahay sameeyaan si dhalinyaradu ay shaqo abuur uga qabto intaas aan soo jeedin lahaa aad u mahadsantahay. aad baad mahadsantahay injineer Cabdicasiis Faarax Xaaji Saciid barasal ka tirsan jaamacadda Bariga Afrika isla markaana wakiilka Hana Academy ee Puntland barnaamijka la kulanka doorka bulshada ayuu marti ugu ahaa aniga Bashir Faarax Saciid la socodsiinay inta anigiis ku mid doono nabadgelyo.